xogayaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Mubaarak Axmed Maxamed oo maanta Hargeysa ku hadlay waxa uu ku dhaliilay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland qaabka ay uga jawaabeen baaqay dhawaan soo saareen dhalinyaro reer Somaliland waxana uu xukuumadda madaxweyne Biixi u soo jeediyay in aanay dhayalsanin ay dhageysato baaqa dhalinyaradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa toosinaya ama wax ka bedelaya qaabka ay Somaliland u socotay 29 sano ee u dambeeyay maalmahan waxa socdo aad iyo aad u arkaysaan oo maqlaysaan dhalinyaro hadlaysa in la yaabo maaha sababtoo ah waxa loo yaabin cidda revolutionada sameysay amba akhrida way garanaysaa umaduhu marka ay isbedelada sameynayaan amba ay sidan oo kala guuxu u jiro marxalad kamid ah maraaxilada ay maraan oo fara badan waa mid kamid ah marka hore waxa jirta xaalad la yiraahdo silent stage amba dadku iyo bulshooyinku inay aamusnaadaan oo dabeetana dawladuhu ay moodaan aba xukuumaduhu inay dadka ay ka adkaadeen taasi waa xaalad koowaad waxa jirta xaalad kale oo iyaduna xaaladda ku xigto dadku in ay muxuu ahaayay dareemaan in dulmi jiro in cadaalad darro jirto inay baahi kala jirto marka dadku waa xaalad kale oo dadku ay dareemayaan taa marka lagu gudbana tu kale oo saddexaad baa jirto iyaduna bulshooyinku ay soo maraan oo ah in ay muxuu ahaayay hadlaan inay wax sheegaan dadku inay kor u qaadaan codkooda inay wax yiraahdaan waxa jira inay dhawqooda kor u qaadaan tu kale jirto ah muxuu ahaayay in ayadana baahiyaadka dadku baahiyaadka ay leeyihiin iyo noloshooda ay ka hadlaan xaaladahaas mid tan ka mid tahay dadku muxuu ahaa 30 sanadood haddii ay yiraahdaan in xisaabino oo aan wax isweydiino oo muxuu ahaayay in taariikhdeena iyo halkan ku socno dib weeg nacay maaha mas'uuliyiinta muxuu ahaayay xilka iyo dadka haysa taladooduna waxay waajib u leeyihiin dadka inay dhageystaan waayo dadkii wax ku yihiin bulshadu waa bulsho wanaagsan laakiin marka ay xisaab timaado qof walba naftiisa inuu xisaabiyo waa muhiim in dalkiisa iyo dadkiisa uu xisaabiyo waa muhiim jawaabaha aan quruxda badnayn ka soo baxay mas'uuliyiintuna maaha qaar qurux badan waa maqlaysheenoo hadallaan qurux badnay baa ka soo baxayay mas'uulku wuxuu mas'uul ku yahay isagoo kursiga ma laha markuu masaajidada joogiyo markuu goobihiisa joogo in lama hadasho laakiin marka mas'uuliyadu hayo waxba la isweydiinaya waa la xisaabinaya marka baaq shacab hadaad maqasho amba dhalinyaro hadlaysa hadaad maqasho waxay ka hadlayaan uma dadka la eega laakiin waxa qarsoon cidna kama jawaabi karayso waxay ka hadlayaan waa baahiyaadkoodii waa tacliintii waa noloshii qof kula aan noolaado xukuumaddiisa kula aan noolaado garbu u leeyahay xaqna wuu leeyahay qofku inuu dantiisa iyo baahidiisa ka hadlo marka arrinka aad lagu fiirsado yaan la dhayalsan xukuumadda iyo mas'uuliyiintuna waa inay aad iyo aad u soo dood iyo argumad iyo isqancin waa in laga jawaabo dhawaaqyada kala duwan ummadda ka imanaya in dhag loo yeesho oo la dhageysto waayo bulshadu waa bulsho wanaagsan weeye bulshadu wax badan bay u sameeyeen qaar baa u sabraya biyo la'aan u samraya qaar baa tacliin la'aan u samraya qaar baa noloshoodii oxygen la'aan u dhimanaya marka dadka noocaas ah in aad hadda tira iimaan liiba kororsatay wax inaga soconaysa maaha waa in aad tira soo dhawo maxay naga dhiman waxaynu wax u qaban karnaa si wax u bedeli karnaa marka waxaan ku soo koobiyo ku soo gabagabeynayaa wada tashi iyo isdhageysi baa meel lagu gaadhaa madaxweynuhuna laba nin mid uu noqon wuxuu noqon Nelson Mandela oo taariikhda aad u sharaftay oo adduunyadu sharaftay oo dadkiisa mujaahid soo hadalkiisa u soo halgamay markii dambana fikta ka saaray ninkii kale loo jiray Robert Mugabe ee ogeydeen sidii xilka looga qaaday labadaas laba nin isku taariikh ah in la mujaahid ahayn laakiin markii dambe ee ay xaaladii dambe gaareen ee horumarka dadku u baahnayeen ay ku kala weecdeen in xilka ku dhigsan yahay ku dhigsan buu noqday dabeetana waa la nacay in dadka dhigaysan waayay buu noqday dadkiisa waa nacay ninna dadkii uu soo dhaweeyay dadkii muxuu kala duwanaa buu ciseeyay dabeetana adduunyadii iyo ummadii kalaba cisi buu ku yeeshay marka taariikhdu mar walba qormaysaa Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen Television Kerial Hargeysa